$1 hadduu soo galo waa laga siibaa si aanu gabadh kale u guursan markaa kaale ma waxa doonaysaa waa arrin la yaab ah baldaya sida ay tiray oo waxay sheegaysaa in ay ninkeeda ama saygeeda ay ka qaadi doonto shilin walba oo soo gala si ay uga ilaaliso in uu guursado xaas kale war sheergareeya muuqaalka si aad u daawataan arrintani laga hadalhayo baraha bulshada ee dooda badan dhalisay falowdhaha pageka Somali Social TV idinkoo iloobin inaad subscribe dhahdo YouTube-keena Somali Social TV like saar muuqaalka haddii aad ka heshay warbixinada aan halkan ku soo gudbino aan ku bilowno warbixinteena dood lagu qabtay telefishinka Universal TV oo ku saabsaneyd arrimaha qoyska dadka doodaasi ka qayb ahaa ayaa u badnaa dumar kuwaasi oo aragti kala duwan qabay oo midba mid kale ka dambayso ay waxyaabo iyo fikir cusub oo nin lagu soo jiidan karo iyo in ninka laga ilaalin karo in uu guursado mid kaleenta ay fikirkeeda ahayd gabadhaani aad u jeedaan ee idin muuqata ayaa ku doodaysa haddii aad rabto in ninkaaga uusan naag kale damcin kaliya lagaa rabo in aad la socoto jeebkiisa dhaqaalaha soo gala haddii uu $1 wax ka yar soo gala ka qaad sababtoo ah waa lacagta ayay tiray halka ugu weyn ee damaca ninkaaga in uu guursado xaas kale gabdho ogaada mar kasta uu ninkaagu jeebkiisa wax ku kordhaan waa mar uu damac kale galo oo halis ayaa ugu jirta in uu guursado xaas kale gabadhaani ayaa sidaa kula talisay gabdhaha la qabo iyo kuwa aan weliba la guursanin war sheergareeya akhyaaray falowdhaha subscribe ha iloobina sidoo kale doodani oo aad u dhayreed ayaa mid ka mid ah gabdhaha ka soo qayb galay tiray haddii ay dhacdo hooyadaada oo meyd ah oo naxash ka saaran hadduu yiraahdo ninkaagu ma bixi kartid waa in aan maqlaa oo aan adeecaa oo awaamiirtiisa oo idil aan dhahaa samcan wadaacan haddii aan wax walba ka maqlo oo daacad u noqdo waan hanan karaa qalbigiisa marka sidaasi adiguna samayso ogow kaama tegayo ninkaaga sababtoo ah waxaad u muujisay jacayl aad u weyn hooyadayda oo meyd ah oo naxash ka saaran hadduu ii yiraahdo ninkaygu ma bixi kartid waa in aan maqlaa sharcigani waa sax oo xilligii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayayba dhacday nin ayaa xaaskiisa u diiday in ay aado oo soo booqato aabbaheeda oo xanuunsan aabbihii wuu dhintay kadibna waxay ka codsatay in ay duugistiisa ka qayb gasho maadaama sakaraaddiisa ay dhaaftay taasna uu u diiday sidii ayaana lagu xabaalay odaygii gabadhii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa u tagtay oo ay u sheegtay arrintaani dhacday wuxuuna ku yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee aabbahaada jannada ayuu ku jiraa sababta loo geliyeyna waa adeecidda aad adeecday ninkaaga ayuu yidhi rasuulka nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee hadalkaasi ay tiray gabadhaani ayaa baraha bulshada aad u qabsaday oo dadka qaar ayaa lahaa waa sax halka kuwa kalene ay dhaheen maahan wax sax ah arrintaasi oo hooyadayda oo meydkeeda bannaanka yaala maan ku raaligelinayaa inaan ka joogo ninkayaga dhanka kale gabadhaani kale waxay ku doodaysaa inuusan jecleen ninkeeda balse ay ayadu aad u jeceshahay laakiin oo asiga ku mashquulo gabdhaha TikTok-ga oo ay sheegtay in ay ka mashquuliyeen ragga xaasaskooda oo markii uu fiirsado ninka muuqaalada TikTok-ga la soo dhigo uusan iyadii damceynin oo ka caajisaya aragtideeda laakiin waxay sheegtay in ay hubto jaceylka ay ayadu u qabto ninkeeda guud ahaan daawadayaal halkaasi ayaan ku soo afmeeraynaa warbixinteena maanta ee aan uga hadalnay dood lagu qabtay mid ka mid ah telefishinada Soomaaliya kuwooda ugu waaweyn kaasi oo ku saabsaneed arrimaha qoyska haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan saar subscribe una sheeg asxaabtaada adigoo like saaraya muuqaalka
siina sheergareynaya. intaan warbixintan teeda kale aan ku kulmi doono waa dhammaantiin idin leh waqti wacan iyo waayisan.